waayahay heesahaaga inta badan waxaan ka dhex aragnaa adigoo ku xusaya dad Soomaalida dhexdeeda si weyn looga yaqaano ama soo halgamay waxa kamid ah Elman oo aad hees ku xustay Allah u naxariisto Ciidiid sidoo kale hees hadda aad soo wado oo iyadana waxa jirta dabcan Maxamed Siyaad Bare Allah u naxariistay aad ku xusayso maxay kuugu dhalatay in aad dadkii hore oo lajimiinta ah heesahaaga ku dhex xusto horta waqti bay gaari doontaa anigana maaragtay sida la ii maaragtay la ii xusi doono saal loo taagnaanayo moogtaa waana wax wanaagsan ila noqotay marka aad ka fikiray because adduunweynaha kale qof walba maaragtay ficilad dawli ha ahaado ama shacbi ha ahaado qof alla qofkii maaragtay icon ah oo ku soo qaataan heesooda ku soo qaataan so anigana inta kalima ahan dad badan jiro maala oo maaragtay dumar ay kamid yihiin jiro heeso badan diyaarsan ku jiraan so wax aniga aan gadaal u dhiganay 20 sano hadda kadib wiil yar oo maaragtay meel walba dunida ka joogo soo heesayo like wisbi odaygi maaragtay halka joogay aad Maxamed Ciidiid Allah u naxariistay hees baad ku xustay magaciisa waliba heestaada ugu dambeysay inay tahay rajaynaya Ciidiid maxaad ka taqaanaa oo taariikhada Ciidiid waa nin geesi ah geesigan dadku dhan wada jecel moogtaa طبعا heesas waxay ku imaaday anigu horta taariikhda Soomaaliya waa akhriyan baan maadaama hadda buugta ma helo Soomaaliya ku saxanay buugta hadda buug ma helo waana I think inaan u baahnaan amalena because luqadii si wanaagsan baan u helay laakiin taariikhda waa fiiriyaa Ciidiid Allah raxma wuxuu kamid ahaa dhowr nin maartay halgama aha oo Soomaaliya soo maray inspiration kan waxa ay filimkii Black Hawk Down wili eray badan heesta ka saara jiray oo dhahay shimbirkii madow waa dhulka wanta oo diyaaradda ula jeeday so taas ay ugu kaliftay inaan sameeyo motivation ka badan wuxuu ahaa diyaaradda filimkaas aad daawday Black Hawk Down wisbi wadankan Kenya ayaad ku dhalatay dhalasho ahaan Kenyan baa tahay adigoo Soomaali Kenyan dabcan aan iraahdo waayahay af Soomaaliga in aad ku haysto markaagii ugu horeysay ma kugu adkeyd qorshahaaga haddana ma kugu jiraan in fanaaniin aan Soomaali ahayn oo wadankan u dhalatay ay isla soo haystaan labaad weydiisay laba su'aalood markii hore af Soomaaliga inaan ku heeso may adkeen laakiin af Soomaaliga halkan looga hadlay North Eastern ku hadlayo eray badan laga fahmeen sida maanta la joogo hadii aan maaragtay ilaa hadda yarta waan ku tuurtaa laakiin waa isqabtaan baan si waa adkeed erayada anaga inta ka isticmaalno iyo erayada Soomaaliga laga isticmaalo isku mid maahan aadiyan marka way adkeed markii hore haddana waad aragtaa aadiyan hadda waa gabaysaa haddana waa ka hadalbana rama wadad ina hadlo uma leeyahay moogta aniga markaas joogna ka hadlaa aadiyan waayahay wisbi maqaayadaadan ka dhex qadayna waa haleena waana habeena socdaal maxaad ka leedahay maadaama uu isaguna leeyahay fanaan baan ahay oo teamka fanka ku soo biiray socdaal waa taageeranay haye socdaal waa taageersanahay qofna talent baad ku taageeraysaa qofna personality moogta dabcan isma naqaano laakiin waxaan ogahay inuu qof saaxiib leeyahay inuu qof la dhashay inuu qof dhalay maamisa waa ninka yar ee iska dhalinyarada iska baashaalayo حتى waxaan sameeyay erayga uu leeyahay waan halayna waan habayna fanaanada ku soo qoray heesta dama ka arki doontiin waa taageersanay ninkaas keep going Jumbo
sirtu waa dhandhanka